waxay tidhi inkastuu la aad yahay oo luma sida mawaashiga ama uu laalo falan yahay oo hantida leefo oo liqo ama aanu laariga iyo goobaasta leebigu maadhiinka lalansada lowga aanu soo dhigin mar haddii lamaanaha iyo ladhayan xiniyo rag wada libaax yahay yani wax kasta ahaada ama fulay ahaada ama nacas ahaada mar haddii inaan rag u yahay oo dumarka laabta u garaacay mar haddii lamaanaha iyo ladhayaan xiniyo rag wada libaax yahay la keeyay adduunyada lahwiyada seeg mooye laga gaari waa libin oo laalowday maasadayo laaxib baa u baxay heestee waa la yaabay inay yahow gabadh 16 jir oo cabaariyaha ku yaal luquntiya laafiyaha iyo garaaraha iyo hidaheeda loo bogay oo kuwii sidigta meeliig iyo dhaqweeladii heemal soo loodin waaye miyaa tidhi ladaab waxar iyo cana leexa oolmoodo riyo loo limaynayo laa galay salaadii buur ku daba liqdaaro waa weliba igu lixib noqo lahanaad lama dhuftiye la xawgaa lagu keed ina leelka murugoodiyo limbaxayga jeclaaday yani meesha ku basade oo ku jabo ayuu danaynayaa way soo jeceliyaa heesta wuxuu kaga jawaabay hurre wuxuu yiri inan yahay qofkii ladan baa dhabanada labeenta le iyo laba cubeen u sheega waa tii hurre kaga jawaabay inan yahay qofkii ladan baa dhabanada labeenta le iyo laba cubeen u sheegaayo nin sahada lilaahi bay laakiin u qaata hadii jeer dumarku waxay moodayeen wax la qarinayo adoo hadda run baa u sheegayo iska daacad igoona waxbaad qarinaysaa jira nin sahada lilaahi bay laakiin u qaataan oo laan garowday maasadu yahay inkastuu niliid yahay oo lax ku sheegay ehelkii ama uu laasta gumarada oo xoolaha ku loo faro ama aanu luufluufka iyo laba colaadeed weligiiba leebridin kol uu qaalin layliyo hol lama adiga dhigaa qubay oo lureem xasta kula raro ama uu laas dhuraala ah kaala shuba la oongubay ama uu maalin leeleel marti looman iyo gacal iyo wan u looga goomane gamba ina yahay labood quus iyo gamba nimaan leeyneen iyo sidiisaba la aad ma laho hiba looxa ugu taaliyo burji baa ku laabudan iyo deeq laan laciifay kol wuxuu ku qabto nin rag quus ba mali hum bu qalin daadu nool yahay deeq laan laciifay inay luurayaan kula taliye laan daaqa naagood iyo laqan dumar ma liibaano laqanka waxa la yiraahdaa hadiya jeer de laan daaqo iska macruuf waxa Soomaali ahaan waxa la yiraahdaa kulli sana waa aqoon sugan badan aan ku arkay waxa iska loo farko kala dadka iska dabshaanka Soomaali la yiraahdo qofka sidoo doona iska yeela dabshaanka meesha doona iska maraya wuxuu doona iska sameeynay luurayaan kula taliye laan daaqa naagood iyo laqan dumar ma liibaane habar wadaag lag iyo bari iyo garoor lagu ladaadiyo iyo sixin gaadis laga lulay iyo laasin iyo mufriyada habiyo waxaan ku hayaa lacag iyo guri leydle iyo sade xambaray la heysiga iyo hadalka leeda fuulka ay hanku waa kulumiyaan indhaha hoos soo laabo lafahaga maaray u tari lafahaga u tiro maaray lafahaga maaray muli meeshii hore la iska leeyahay wuxuu leeyahay dee u dambaystii adigu bahorta isgunaanado wada kala jeexo waxay tiriinaan tii cambaro wax la yiri hurrow oday hayeen qalad jiraa yiri ruuxu hadduu hamuun qabo heesahani waa kuwa aan ku jirin silsiladii hore wax la yiri hurrow oday hayeen qalad jiraa yiri ruuxu hadduu hamuun qabo wuxuu sugayo hoo mooyay dhagihiisa hawraar iyo hadal iyo warkuma duxo oo gurigu wad kama taliyo wata Soomaalidu tiraahdaa meel hoo doonaysa hadal waxba kama taliyo wuxuu sugayo hoo mooyay dhagihiisa hawraar iyo hadal iyo warkuma duxo oo gurigu wad kama taliyo marka hore qof ehelhiifo waxa jira habaar qabe waalidkay halaag mudo iyo waligay hooy ma oran holan aan la darandeeriyo baahi huba qaada iyo haweenka kuma korin habla weyn mid yare dhaaftay oo gayaankeen hareer maray iyo guuna mihi hayda leh boqonaan xilkeed hanan hawsheeda ka adkeeniyo habasna mihi caanya quruxdana hirgeeda le iyo midhar ducul haloosidii iyo laan hareeriyana haybtayna ma gabano halqiga reerka ugu badan ee hodanimada ugu dhow yahay harta ayaba iga dhigay maxaan hooyigii gubanaya hantiyaraha iyo dooriyaha dal isku falayaabay ila inta midna uma nigi qurux iyo karti iyo reernimo iyo midna uma nigi maxaan deeriye iyo guban iyo aan ka doonay maxaan ka doonay wuxuu yiri hurre ambaray hubaali iyo human xaaja lagu galay horaa loo midiidimayo huwan weelu goysaa meelaan hogrba lagu hayn baa sacab laga hawadiya qaaliyay hadiyo jeer hindisaha bilaashka iyo hiyan bilgahayn baa haadaan idin qodob boqotiin ku haydhaay noogtay haweeyaan inta gabadh hanaan wacan oo heemaalka kula mid oo hagar iyo wacays dhalay haydhaf magaca daarood iyo hartinimo ku guursaday qabri loo haduuday ceel dheer ku hawtay noogtay haweeyaan inta qalanjo hoobale iyo darmaan loo han weynaa hangay laga inaabsaday iyo horor iyo mid dayrsan haamaha saraana iyo hartinimo ku faraganay illa heeda daabaysay la harsan darxumadii hada warbaahay buur dumarka waxay ku jabeeneen hebel baan maxay guud haldaalay iyo hootanuuq cadceed oo horuntooda jeceshahay oo wiil kasto haliyay horweyn inuu ka soo dhuro ay heed isula diyaar yahay fiidkii taqiyeeno
laga hoog xilkay gabay ku gambeeyay hadhow madhan haadiyo waraabaha reer hawdu loodo xabayaanay heesuu hoos ila daadagina waxaan doodi kaga haday inkastaan gu habatacay iyo rug haweensadkii yaaliya kuugu baaqa dhoon helan inaan laga habeertoonoo maqan kaa haraada inuu hayaan lagu dhafriiray inuu hantii kaa yaraana inuu cadow kugu hujuumi hadhac iyo dal nabadeed ku saashahoodan weli degmadiisi ku amaanaya aad iyo aad meeshiisu amaanaya dardaro iyo waxbaan hayaa ku sahanshahoodan kollay aadan haahe iyo hawraarsan odhanayno helinkii bannaanaa iyo hoosadii nimcadu taal hayjadi kaaga xidhan tahay isna habar wadaagay ku habaari maayo hilba aygu kaa yaalle hooday nasiibkaaga iyo kuma gaba habeenkaa heliyaho ku hadlay ducana ku dar kollayba dee waa kaasoo adiga dee markaas inantii heestan ay tirisay ay ku sheegayso dhulkii iyo isagii meeshanoo nimcada ku sheegay ayana bal fikraday ka haysato waxay tihi canqab iyo dhul buuraa iyo cal madow baad ku weynaato boqol ciidan laga dhiijaa cunto lagaaga dhigi jiray oo caqliga habar jeclaa sidaas dhulkaagi weeyey anigii ciddaan ahayba dhulka ciid guduudda iyo carsida banaanka iyo caadaanu joognaayo ka cayaar tumaynaaye maxaa ciilka aan qaba iyo cimrigayga kaa galay anigu hawd baan joogaayo halkaasaan deganahay wuxuu yidhi hurre gabadh yahay cilaashii baa dib u soo cusboonaysay anna iicug adigan soo celiyey hawshiisa canqab iyo dhul buuraa iyo cal madow buu fadhihi jiray cod yar baa lagaa yidhi waxaa tahay qof caamaahan cali iyo buur wax ka aqoonin carrihoodana weeyaanu cabsi iyo kulayl ma laho cudur iyo xanuun ma laho cudur iyo wax gaajaa cid ku sheegta lama arago dusha lagama caariyaystee durduradu waa isceliyaan bandaraduna waa curfa waa lagu caraaba magaalooyinkuna inoo dhow boqol ciidan laga dhiijaa cunto lagaaga dhigi jirayna cod yar baa lagaa yidhi cudulka iyo gadhoorkooda iyo caanaha riyaha dhalay hadday kugu canqariyaan ama aad cawlamaal tahay maskaxdan cawsku kaa baxaya caaradu ku xidhanta iyo dhawow kuma cafuufneen oo calam sidan ma noqoteene cawadaada gunri lahayd aqliganba ma yeelatay maad noqoteen haddii caana riyaadaad lagu canqariyo caqliga haba jeclaa sidaan cud yar baa lagaa yidhi canaba imaanka doorsadama iyo maskaxdan cilmi u gelin iyo cilada keenta waalida iyo ciraq idinku soo duxa idinkaa caado u lahaye sheekada ha soo celin xagga anagu ma joogno calaf waxaan ka sugayaa ragga caada soo joogana cod yar baa lagaa yidhi inta uu caleen geed liicarasyada ku yaalyaale caanaha yar iyo xabagta iyo midhaha cunaysaan weligii way iscajabisaan oo caasha way saartaan xilliga barwaaqada hawdka joogtaan dee aan aydaan haraadin dee markase uu caleerka gule ee cashatabka iyo dhaqayadu magowga ay cilaalaana jileen calkaagtame ee dhaanku caynu dolondolo ee cagacadaan ku fulisaan cambar baanu noqonaayo cawdayadaa ku gamaadaani cadarkaad arkaysaa ee canka buubsa hadallada oo casho dhow baanu leenahay marka reeruhu abaar markay abaar noqotay lasoo markaa inantu waxay tii hees bay tirisay leedahay baldayaynaan riya iyo buurun ku jirin hadal kale oo dee iidaan laho dadku dhegaysan waxay tii sidaa tahay gudgudamada iyo miishmiishle galabsaday baad isaga maxdumaysaa daad baa la moosaayo mujad iyo tog baa tahay mishaarta astaataamaan dhawaf weyna haddaba caydu maadh maahe mabda iyo qur-aan maahe maal iyo adduun maahe maskaxdaadu dhagax maahe sheekada macaaneeyo maahmaaha iyo tale iyo halxidhaalo meel mara iyo urog midab kaloo wacan ka saar dee riyahan iyo buurahan iyo waxano wax kaloo dee la qaadan karo haddaba sheekada aan u rogna bay ti naga daa buur iyo ri iyo hal iyo hawd iyo haddii raggii kasoo gelayaan halkaa ma ahayn adigu meel dambe kasoo gelayaan way soo gelayaan taa wuxuu kaga jawaabay wax la yidhi duq guunoo cimri gaadhay baa yidhi geel hawryal soo qaadiyo geesa dhiigle bay siga huga iyo tigaadii miyay soo gablooleen oo imikaad garatay sheekadu inay kugu guracan tahay haddabaan u guulkama daba golayaasha qaarkood iyo gabar macallin doonaysay hal xidhaalo googo-ano aanan gura fogaynay ka jawaab gobaaday ma taqaan gobaaday geedka aan hadduu baxo weligiiba gaamuro goonyaha u kala fido neef ka helin hadhow gala ama midhiyo goobaar haddana aan gu iyo jiilaal caleenta guudka ka taliya gabalnaanta faraqale ma taqaan gobaaday geesiga halyeyga ah ee goob kastaba hormuudka ah isagaan xishood gubaya iyo xaqu gudanayaa jirin qofka quru ka gaabsaday xalka guudka kaga shuba ma taqaan gobaaday galcadaaga odayga ah ee guurtinima ku odushaha ee guddi xaajo loo saariya misna maragga aan gelin ma taqaan gobaaday inkastoo gudgudamada iyo mae gaaxday lagu shuba ama uu gargara baxo galka aan qof oomani weligii galaan darin ma taqaan gobaaday inkastaad gini iyo hal leedahay ama guunyo meel mara gashiga aadan bixin karin waxay inantii kaga jawaabtay alxidhaalaha markuu si toosan ugu muuqan waaye si dadban ayay uga jawaabtay waxay tidhi hadalka wixii shareeco ahaa ama shuqul magaalo ah
ama gaalku shaabahaya shaydaan buu kusoo qoray ama aan shaahid loo aragaa sheeko oday ka maqashee ka shakiya ka hadalkooda waxbaa suuminaysaa oo shabakad baad dhigaysaa sheekh baanu leeyahay waxaa odayaal baa loo geenaya waxay ka noqdaan sheekh baanu leeyahay hurro oo markaa yar dareemay inantii inay yar simbiriraxatay oo xalaalihii aanay sidiisii uga jawaabin ayaa heestii ku soo noqday wuxuu yidhi cambaroy amuurtii iyo soo af xidhantay heestii muddada dheer aloosnaydoo ubaxi wakaa dhacay oogadaada saaraayo awal horeetaba waan ogaana awalba dumar waan ogaana fudoodu waxay tahay adaan aarmigii sidan aarka looma jilib dhigo urku bugla shaacariyana walanwaloo kalena adigii asaaga iyo udubcaad looma soo diray wax badan baan ku yidhi edebsi xaqigii ku aasaya ku yidhi aadun baa ta ilan ha kuu baneeyana iga rogadhe oodaha buyi nimankii kuu jiibanayo qoslayay laabta kuu garaac iga furadhe hal xidhaalaha inantii markaa hees bay tirisay runtii kooban laakiin caanbaxday iyaduyo heesta uga caansanayd ah waxay tidhi reeraha warkood ma qabsado waxaan ahay waruma haysidi dawliskii walwaaleed iyo yaan wegarad kula go'ine ina walan walow joog xagaasay ka timid ila warba ima haysid waxaan ahay iyo inaan sodoahay inaan ahay inaan doonanahay in lay qabo wuxuu ihi ma markay wadeecawday xaajadii widhiidhiday baad weerixisay reeri haddaba laguma wiirsado qof waktiguu tumaatiye reeraha warkood helayo annagaaba wada niilayo wacay saadan weeyaan waxun laguma sheegin adigana warkaa helayo xogogaalku warisay way waalan tahay mooye warsan kaama sheegin anna wadarta hadalkeedii waxbaa iga biriq yidhi adigaa waddada fure wiil hadduu ku guursaday oo weydo geel ku dhaafsaday oo welina aanad aqal gelin ma weeluni leeyahay baad weligaaba 100 geeliyo waaye laga bixiyo waqtigu kaaga lumi jiro ilay halkaasuu ka daalacday waxaan hay waruma haysid buu wuxuu ka qaatay inay leedahay waxaan doonaa waxaan ay sheegan markii aanu tagay inay markaa doonanaydo ninka markii dambe guursaday gabadhu doonanay geel yarada iyo qoryo iyo markii dambe laga bixiyay wuxuu leeyahay haddii marka horeba aad doonanay ma weeluni leeyahay baad weligaaba 100 geeliyo waaye lahayd waqtigu kaaga lumi jiro maxaa riyahayga iyo geelayga iyo waxayga maanta iga baayacay hadda maanta oo dhan inan baahan maxaa iga daalinaysa